السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا maanta wuxuu ku saabsan yahay xikmad la'aanta hogaamiyeyaasha. Kusoo dhawaada barnaamijkan. Waxaa halkan ila jooga Samiir iyo anigoo ah Abdul. Waxaanu falanqeyn doonaa barnaamijkan xiisaha leh. Waxaan rabaa in aan ka hadalno arrintan annagoo sahminayna dhibaatooyinka guud iyo caqabadaha ay hogaamiyeyaashu kala kulmaan go'aan qaadashada iyo ficilladooda. Waxaan halkan idinkula wadaagi doonaa xeeladaha iyo aragtiyo ku saabsan sida hogaamiyeyaashu u maareyn karaan ciladahaas si ay u horumariyaan habraacyadooda go'aan qaadashada iyo kobcinta dhaqanka xikmadda ku saleysan ee gudaha ururadooda ama hay-adaha iyo dadka ay maamulaan. Fadlan nagu soo biir oo markaas aan daha ka furno arrimahan muhiimka ah iyo fikradahan iyo talooyinkan wax ku oolka ah si aan uga caawino dadka aqoon-yahanka iyo hogaamiyeyaasha inay kor u qaadaan waxtarkooda hogaamineed oo ay u gaaraan natiijooyin wanaagsan oo wax ku ool ah. Ha mogaanin fikrado qiimo leh oo wax ka bedeli kara hab dhaqanka hogaamineed. Ha iloobin inaad ku dhufato batoonka like iyo subscribe si aad u hesho barnaamijyadan iyo doodo wanaagsan oo caafimaad leh oo sidan oo kale ah. Haddaba aan bilaabno barnaamijka yaga. Waa tahay bal marka hore aan isweydiino su'aal muhiim ah. Waa maxay sababta hogaamiyeyaasha qaarkood ay ugu guuldareystaan inay adeegsadaan xikmadaha? Jawaabtu aan eegno. Hogaamiyeyaasha qaarkood waxaa laga yaabaa inaysan isticmaalin xikmad sababo kala duwan. Taa ay ka mid tahay inay noqon karto in hogaamiyaha uusan lahayn waayo aragnimo ama ay tahay waayo aragnimo la'aan ama aqoon la'aan. In awood la'aanta ama inaysan haysan awood inay ugu naxariistaan dadka kale. Ta kale waxa weeye inay diiradda saaraan faa'iidooyinka muddada gaaban oo ay ka imaan karto cawaaqibta mustaqbalka fog oo aan wanaagsanayn oo aysan eegin cawaaqibtaas waxa ka mid ahaan kara mustaqbalka fog ama dhibaatada ay keeni karto. Ta kale waxa weeye tixgelinta anshaxa iyo akhlaaqda oo aan la siinin mudnaan tixgelin leh. Tan labaad waxa weeye intaa waxaa dheer cadaadiska dibadda sida dhaqdhaqaaqyada awoodaha kala duwan ee uga imaanaya dibadda, fikra kooxeedka ama kooxaha isku raranka ah ama rajooyinka bulshada ayaa sidoo kale saameyn ku yeelan karta go'aan qaadashada, taasoo keenta xukun la'aanta xikmadda ama in la gaaro go'aan aan wanaagsanayn. Tan saddexaad waxa weeye arrin muhiim ah oo ah in hogaamiyeyaashu ay si joogto ah u kobciyaan xikmadda iyagoo raadinaya aragtiyo kala duwan, waxna ka bartaan khaladaadka iyo ficilada guracan, iyo kala horumarinta habdhaqanka anshaxa akhlaaqda hogaamineed si loo helo hoggaan hufan oo xilkas ah.